casharkan waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano hidden elements ama elementska ugu horeeyay ee aan ku baranayno HTML ayaan ku baran doonaa. Hidden elementska waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 elements ayay ka kooban yihiin. waxaana ugu horeeyo element loo soo magacaabo magaciisa h1 hidden 1 ayaa loo soo qoraa. waxaa ku xigo elementiga labaad waa hidden 2, waxaa ku xigo hidden 3, waxaa ku xigo hidden 4, waxaa ku xigo hidden 5, waxaa ku xigo hidden 6. hidden elementskan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo ciwaanada ama qoraalada la rabo fartooda inay aad iyo aad u weynaato. okay waxaa kaloo halkan ku baranaynaa hidden elementska waxay ka tirsan yihiin group lagu magacaabo block line elements. waxaa kaloo jira ayagana kuwa lagu magacaabo inline block line iyo inline elements wax la dhahayaa jiro. block line elements waxaa loo dhahay waa elementi ka bilaabanaya mar walba new line. marka aad qorto wuxuu ka bilaaban doonaa new line. new line waxaa loo yaqaanaa marka aad browserkaaga tagto welcome haddii aad qorto pagekaasay ka bilaabatay. mar kale haddii aad welcome qortona wuxuu ka bilaaban doonaa kii hore hoostiisa. waa block line waxa lagu yaqaana. sababta block line loo dhahayna waxaa waaye pageka geeska gees ayay qabsan doonaan. tusaale linekan dhan asigaa qabsanayo, midka kalena lineka ku xigo ayuu qabsan doonaa. laakiin inline elementska marka aan welcome qoro haddana welcome kale aan qoro maantoo dhan way isku daba xigsan doonaan, ma ka bilaabanayaan new line. okay waxaa rabnaa marka hidden elementskan inaan practice garayno ee aan isticmaalno code ahaan. marka ma rabno hadda filekeyga markaa safe dhaho waxaa arkaysaa browserka waxaa lasoo bandhigi doonaa qoraaladii meesha manualka uga qoray. ma rabo qoraaladan inay iga soo muuqdaan, waxaa rabaa inaa iska qariyo. mar allaala markaa qarinayno qarinta HTML waxa loo isticmaalaya ayaa waxay u taqaanaa comment ayay u taqaanaa. commentiga laba shaqo ayaa loogu talagalay every program walba in loo isticmaalo. marka koowaad waxaa waaye code aad qortay ee aad ka maarantay in aad iska xirto ee aan browserka kuu soo muujin. faa'iidada labaad ee loo isticmaalo waxay tahay code ayaad qortay, waxaa rabtaa team ayaa isla share garaynaysaa shaqadan, waxaa rabtaa in ay fahmaan shaqada iyo ujeedka aad u isticmaasho codekan. codeka korkiisa ayaad ku qoraysaa sharaxaad oo aad dhahayso waxaan iyo waxaana u isticmaalay. okay annaga hadda kan haddii aan rabno inaan qarino qoraalka hortiisa ayaan tegaynaa, tag ayaan furaynaa, kadibna waxaan dhahaynaa not equal ama shift number 1 minus. waxaa arkaysaa midabka inuu isbedelay. waxaa imaanaysaa ilaa inta aad rabtid inaad qarisid ama commentiga aad saartid. waxaa dhahaynaa haddana minus tag ayaan xiri doonaa. intaan browserka ma soo rangaray kara ama ma soo muujin karo. waxaan dhahaynaa control s, browserka ayaan tagaynaa refresh. faa'iidada maxaa waaye hadda qoraal oo sharaxaada meel aan ku qoranay ayaan iska xirnay. marka laba dhinac waa u isticmaali kartaa code aad qortay inaad iska xirto iyo sidoo kale sharaxaad inaad u qorato. bismillah, halkan ayaa imaanaynaa, waxaa furaynaa tag. okay tagga sidaas ayaan dhihi doonaa, gudihiisa waxaan ku qori doonaa elementiga magaciisa. banaankan ayaan imaanayaa, waxaan soo xirayaa tagga. intaan waxaan u naqaanayaa dhahnay start tag, tagga meesha uu ka furmay. slash marka aad aragtana waxaa loo yaqaanaa end tag. meeshaan dhaxa HTML waxay u taqaanaa content ayay u taqaanaa, waa meesha lagu soo bandhigayo qoraalka. content ayaa loo yaqaanaa, waana start tagga iyo end tagga dhexdooda ayaa waxaa loo yaqaanaa content. anaga aan ku qorano hadda contentigeena tusaale hidden 1 aan ku qorano, control s, kadibna waxaan tagaa browserka refresh ayaan dhihi doonaa. waxaa ii soo baxay qoraal boldi ah fartiisa oo farta midabka tiq tahay, sidoo kalena aad u weyn ayaa ii soo baxay. okay
haddana haddii aan rabo inaan qoro mid kale ee h2 ah waxaa dhihi doonaa tag ayaan furayaa h2 halkan waxaan ku qorayaa hidden 2 marka maxaan rabnaa inaan fahano marka aad rabtid program inaad ka guul gaarto ama every maado walba aad baranayso inaad ka guul gaarto haddii aad rabto please waxa meesha ku qoran ha xifdin laakiin waxaa fahantaa shuruucda iyo syntaxka waa inaad fahantaa tusaale annaga markaa hadda qoraynay h1 waxaa sheegnay elementiga magaciisa inta qoraalka aad doontaa ku qoran kartaa marka lasoo xiraayana elementiga magaciisa sheegaysaa every element walba oo html la qoraayana nidaamkaana la maraa maxaa isbedelayo elementiga magaciisa sidoo kale maxaa isbedeli doono qoraalka ah inta ku qoranaysa ee adiga optionalka ku ah waxaa dhahaynaa save kadibna refresh hidden elementska marka waxay u qaabaysan yihiin qaab ah midka koowaad ee h1 ugu size weyn h2 xoogaa wuu kasii yaraanaa 3 wuu sii yaraanaa 4 mar walba dib ayuu usii yaraanaa hoos ayaan u baxaynaa maxaa kaloo meeshaan ka aragnay inay yihiinaan dhahnay block line elements kii hore linekaasuu qabsaday kan ku xigana wuxuu qabsaday new line cusub ayuu qabsaday waxaa qoraynaa h3 haddana waxaa dhahaynaa magaca rabtid waa ku qoran kartaa waxaa dhahaynaa hidden 3 naga soo xir haddii aan dhahno refresh wuu kasii yaraaday farta soo ma okay waxaa qoraynaa haddana mar kale wax loo yaqaano h4 waxaa dhahaynaa hidden 4 markaan aan wada dhamaystirno waxaa dhahaynaa hidden 5 okay naga soo xir waxaa dhahaynaa 5 okay mar kale waxaa noo dhiman kan ugu dambeeyay oo ah h6 waxaa dhahaynaa hidden 6 okay hadda aan dhahna browserka refresh waxaa ujeednaa in hidden 1 uu ugu weyn yahay 2 uu xoogaa kasii yar yahay 3 asigan uu sii dhimay 4 uu sii dhimay 5 iyo 6 waxay u socdaan qaabka ay u kala weyn yihiin marka mar walba ee aad element qoraysid qaabkan ayaad mari doontaa waxa isbedelaya waxaa waaye elementiga magaciisa. Assalaamu calaykum waraxmatullah.